السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meel kastood ku sugantihiin walaalaha Soomaaliyeed welcome ayaan idin leeyahay waa walaashiin nooca cabdi waxayna leedahay share garar isaara isasgarab isaara like saara maxay tii gudbisiya beeshka kala ku dara laakiin soo dhawaada war yar oo dhinaca Itoobiya oo codsi ah oo walaalaha Soomaaliyeed in la wada gaarsiiyo la rabo ayaa jirto iska share garay idinka taa share garaysaan beeshka kala ku dartaan intaas ba waxay noqoni codkayga inuu cod kala gaaro oo cod kale aniga markaan hadla ruux kale u gaaraya warka ruux kale gudbisiinaya haddana ama warkayga ba gaar markii inaad sii gudbisisaan baa la rabaa sheekada waxay ku socotaa Itoobiya kilarka shanaad Soomaalida naga joogto Soomaali weynayadaan Soomaali noho Itoobiya dagaal baa ka jiro qoomiyada iyo Oromiya iyo wadanka Itoobiya dawladda faraha isla gashan waxa ka socdo waxaan hadda dib u sheegay ma aha nin war qaba war ma og nin war ma ogana la yiraahdaa marka waxaan ina leeyahay Itoobiya iyo Oromo waxay isku hayaan waad u jeedaan meeqa qoomiyadood oo ku nool meesha 83 qoomiyadood ayaa Itoobiya tagtay qoomiyada ugu baaxadda weyn ugu ballaaran oo Oromiya la yiraahdo ayaa nin laga dilay weeyga hadaan soo dhaafne ka badan oo kalena waaba laga dilay laakiin sheekada nin fanaan bay ka bilaabatay ninkii aaskiisa gobolku ka soo jeeda lagu aasay dawladda tirahay shacabkii reer Itoobiya siyaasiyiinta reer Oromiyana shacabkii reer Oromiya iyo siyaasiyiinta reer Oromiyana way ka diideen waxay dhaheen caasimada waa in lagu aasan ninkan fanaanka ah waa la iska hor imaaday ala kulli xaal adig waxay noqotay inii sheekada uu ninku u hogaaminayo oo arinta ku dhiga adeega uu ahaa Jawhar Maxamed Meydaan ninka Oromada cod ballaaran ku dhaxlaha Oromada ninka ugu codka dheera maxay Itoobiya aad uga dhaxmuqtay Jawhar Maxamed iyo 30 nin ayagoo iyo dhowr nin ayaa xabsiga loo taxaabay maxaad meedkar ugu diidan taaliir gobolkii uu ku dhashay in lagu aaso oo dadka maxay mudaharaad u gelinaysa Jawhar iyo rag kale fara badan oo Oromo xabsiga loo taxaabay Oromiya saasay u banaan baxay oo iidana kacdoon buuxday bariyahan u sameysay kacdoonka anaga waxa naga qarinayo oo banaan baxa faraha badan dagaal yar ma waa culus yahay banaan bax yar ma waa culus yahay laakiin internetyadii ayaa la jaray waxada video oo soo galay ama internet oo la arkayo male ismaqal iyo aragti inta waa la tirtiray marka ma aha hoosh hool culus ma dadka joog waxay leeyihiin hoosh hool sahlan ma Itoobiya ka jirto marka waxa weeyaan waxay aheeday hoosh hool culus waaye hayareysanidan ayay ku soo jabaan dadka Itoobiya joogo waayo internetka fiidiyowyada la soo galin laay internetka warka la iska maqli lahaa hadii la gooyo wax la soo garina la arkay ma la ka Oromo way kacsan tahay wayna mudaharaadaysa saakay baan dhageysanay wareysi wiil Oromo laga qaaday af Soomaali ku hadlayo oo uu leeyahay 100 iyo dhowr nin ayaa la dilay oo Oromo ah kacdoonkii dadku ku jiray marka wuxuu yiri anagu waxaasna uma dhimanayno reer fara badan baan yaani dad badan ay milyan hadii laga dilo milyan kala soo haraysa way sheekada halkaas uu ka wada marka hadda ninkii maanta ba la aasaya fanaankii maanta uu aas qaran ayuu qaadanaya ninkii fanaanka gobolkiisa ayaa diyaarad helicopter lagu qaaday gaari hada lagu ma qaadi karin wadooyinkii waa wada go'an wadooyinkii wax walba internetka wixii dhan waa la wada gooyo wada walba gaari iyo technique iyo balaaya lagu wareeji ma garatay oo meel Itoobiya wax soo galayna mal wax ka soo baxayna male caasimada inta sabab sidii oo kale gobolada sidii oo kale gobolada internet iyo gaari wax galay male wax kasta waa daakum على كل حال نكي ميدكيس هليكوبتر با لوgu qaaday gobolku ka soo jeeda lagu aasaya Oromada ballan waxay ku qaaday siyaasiyiinta 30 iyo dhowrka nin oo xabsiga laga qaaday waa inaan u banaan baxnaa bay dhahan oo si laba laabna kacdoonka marka Oromo hoosheeda horbay u sii curin rabtaa dawladana waxay maleynayaan markii ninka la aas inay farfariisan doonaan Oromada rag culus ba xabsiga looga kaxeeyay mana fariisan doonto way kacdooni doonta waayo wiil badan oo Oromo af Soomaali ku hadlay in ba ka jawaabeen waxay dhaheen anaga waan sii wadi doonaa banaan bax ilaa siyaasiyiinteena xabsiga laga soo daayo ilaa kii dhintay waaba dhintay markii ala kulli xaal Soomaali maxaa ku soo socdaa way markan Soomaali maxaa ku soo socdaa waayay waxa la yiri ninkii qeyrkiis loo xiro adigana soo qoqoysasha ku jirtiin Soomaali weyn hadaatiin Soomaali weyn waxa la qoqoysasha ku jirtiin iska soo qoqoysada idinka sakiimiin in lagu xirxiir la soo diyaarsada Oromo meeshii loo qoyay xageed joogtaa waaye gumaysiga Itoobiya wali maxay soo dareerin
إلهي حسبنا الله ونعم الوكيل بالله الله كم جنجلنا لنا قال هذا يشارك هذا نينك أورن كهاي ده زيرتن أورن أن أويرينو أبي أحمد هارا نينك هذا قومية أورمادا إيصال شركة رنت هذا أينيس كإمامتي نينك وحلير أورما ما هواي وأمهارا واي أمارا واي نينك أبي أحمد أمارا واي ويلش أورمادا ساكن لو رسناي أيها صفي عن وحشيء markii la yiri ninka maxaa inuu amaara yaad ugu malaysan waxay dhan koow markuu reer wasaare soo noqdo amaara rageedii dhamaaday ee madaxdii ayuu taalooyin u dhisaa la yiri mililaq iyo haynista ma dhimana maxay dhahay war ninkii weynaa Itoobiya madaxweynadiisi mingisti Haile Mariam iyo mililaq balaayada ma maqli jirteen kuwaas oo amaara ka soo jeedeen ayuu waxa la yiri u dhisay taalooyin awramana waxa la yiri xabsi iyo jeel u wada taxaabo wax uu qabto malaha ninkan waxa la yiri siyaasadda wuxuu ku soo galay oramaanahay markay wax hadaba sheegi kara ma laha la yiri wax inuu orama saxiyo wax xaqiijin kara ma lahayn wiilasha oramada sababtoo ay tahay ruuxa markuu qabiil ka soo jeedo qabiilka ruuxi la dhashay la arki laha jifadiisa la arki laha reer hebel baa dhaleen baa la dhiraa sida Soomaalida isku aqoonsadaan oo kala loo aqoonsan laha hadda waxa la yiri abi nin aramanimo ku aqoonsado waa la yahay oramadii waa afkeeda saakay oo wareysay la qaaday Nairobi joogan baa saawada dhaheen oo way isgaranayeen iyagu kulligood laakiin markuu waxa la yiri ninkan nin la soo doorto meehan nin wuxuu ahaa sida Mustafa Cabjal oo kale ninka maxaa la yiraahdaa macna kusima ahaan baa ninkan loo keenay ninka reer wasaaraha oo abi u taqaana nin la doorto meehan kusima ahaan wadanku u soo galay markii la wareysto intaad ka soo jeeday intaad ku dhalatay la yirana gobolada Oromada ay ka soo jeedo magaalo kamid uu sheegtay magaaladaas aan ku dhashu yire magaaladaasna amaara way joogtaa ninka laakiin waxa la yiraahdaa sida aan baa loo moodo inuu Oromo yahay hama aha uu yiri Oromo ma aha waa ninka amaarada dhexdegta waa uu yiri ninka Oromada saas wax u sheegay saakay marka ninka abi ah wuxuu rabay sidoo kursi ku fuuro sidoo xukunka ku qabsado sidoo Oromada maxay ahayd oo Oromada oo iidan ishaqeen on alifta ah Soomaalida on alifta sidoo gacanta ugu dhig laha uu ku soo xaray laha hubku ooga dajin laha siyaasad qaba ugu soo galaa ka dambana isticmaalkii gumeesiga Itoobiya oo maxay ahayd lugta dhulka ugu dhufan laha ayuu weeday beesha Oromo uu ku soo gabanayay marka Soomaaliya ay taas niyad ogaatiin baa la rabaa ninkan Oromada uu ku soo gabanayay hadda miiska waxa soo fuushay inuu san Oromo ahaan Abiy Ahmed ninka u taqaanaan amaara inuu yaho waayo Itoobiya reerka ugu agooda weyn ugu ballaaran ee ugu tirada badan qoomiyadaha Itoobiya ku nool waa Oromo weeyaan marka uu cisday maadaama Oromo ay maxay ahayd ay qabto maxay ahayd halgamayaal fara badan oo maxay ahayd ay qabto ishaq on alif ay qabto ay durku ku wada jiraan qabiilka Oromadu ama saas uu isaga sheegay hatta markii la yiri qabiilkaada yaabay gobolka aad ka soo jeedo qabiilkaada yaabay markii la dhahay wuxuu dhahay la yiraahdo markii maxay ahayd aan dambe markii wuxuu dhahay aan si fiican kursiga ugu fadhiista yani ina sheegi doonaa uu dhahay qabiilkayga ilaa haddana buu sheegin buu dhahay nin Oromo saakay la wareysanay marka inuu amaara yahay cadaatay Soomaali war ma hayso ninka waa amxaar dhalay waaye amxaarada dadka maquuqi jirtu ka soo jeeda abi ninka u taqaanaan ninka farmaajada furaha ku rugta asag waaye Soomaaliya ay 10 indhood furta 10 dhagood niyaasha aqligiina ha shaqeeyo waxa la rubsiina nimaad bari waasa bilku ma baratad ninka orankana barta Oromana barta amaarana barta shaydaanka Itoobiya ku nool barta meeshii laga soo galayna barta wax kastana barta shalay abi maxaad ku dhaysan ama ninkan Oromo waaye noo soo dhaweey muslim waaye Oromo ma aha ninkan amxaar dhalay waaye hadday cadaato miiska soo fuusha Soomaalina waxa la wixii kilarka ku nool had digtooni hala sameeyo waayo waxa la yiri Oromo gobol badan baa waxa la yiri Itoobiya gacanta ka bixin oo Oromada waxa la yiri ay dhulkeeda dhinac u hanatay oo cishatay oo hadda waxa la intuu dagaalkan kacay gobol badan baa oo Oromiya ah ayaa Itoobiya gacanteeda ka baxday oo Oromada xooggeeda wax ku dhacsanaysa marka Soomaalidana waxa leeyahay meeshii qaarka lagu xiraata soo qoyso marka Soomaalida waxa leeyahay ka kaca fadhiga 10 indhood yeesha warwareega iyo canda sawaad luqluqeynaysan iska dhaafa guryaha ku sugnaada arrinta yar ma arrin sahlan ma dhaqdhaqaaqa joojo guryihiina ku jira lug safar lugta dhulka ayaa la gali banaanka u bixina kacdoon ballaaran baa socda madax ayaa nila jabin Soomaali maraweynay waan ina sheegaya marka
soomaalida kale meelaha ku nool waxa leeyahay walaalina Soomaaliyeed oo Ethiopia ku nool hal laga warhayo waraasiyaha Ethiopia si fiican loo dhageysto oromada si fiican loo xiriiro kolba isgaarsiin ma laha meesh isgaarsiinta oo dhanba ayaa la wada damiyay ma garanaysay anna waxaan inaga codsanayaa anigoo cali sacabta share garees subscribe like warbeejka kala mudara wariya wax kasta ku sameeyo wariya oo maxay share wax kasta ku sameeyo oo comment ka bixiyo oo beejka ku daro oo ii share garay YouTube wariya marka intaas aan looga baxaya walaalahay waad mahadsantihiin wakuka